الله أكبر الله أكبر ولي واحد صعدا كعدون كي بلوغها الحمد لله ولي ما ضمان waxaan u maleynayaa inuu meel fog gaarayo macawista aan xidhanahay sanadkii hore aan iibsaday iyadoo midab kala ahay maanta ku soo laabto iyadoo buluug ay soo baxday Facebook-ana waxaan ku arkayay wiil reer Ascaanood oo gabadh siinaya ubax yaanu waxaan ku aqaanay mid roses loo red ah casaan guduuda mid blue siinay hadda waxaan ka baqayaa sida kacdoonka buluuga u socdo maalin dhowr inuu doog inoo soo baxo isagoo buluuga alxamdulillah weeye ilaahay mahadiis weeye libinta iyo guusha maanta aad keenteen ee ku yimid gacantiina ku yimid garashadiina ku yimid dareenkiina ku yimid inaad ka dhiididaan waxa aad dhibsanaysaan eedaan doonaynin ilaahayna idinku garab istaagay annaguna aan idinku nimid oonu dhiiggiinni idinka daatay intiinnii ku dhimatay intiinni ku dhaawacantay aanu leenahay dhiiggoodu cidlo ma dhicin marka alxamdulillah weeye kole waa u jeednaa in sidaa uu garaad cabdikariin sheegay inuu odaygii muuse bixina xalay hadlay oo yidhi odayaashaas iyo dadka meeshaas joogaaya jawaahirta waa shabaab amiin argagixiso war ma argagixisatiin ismadu ma argagixisaa garaad cabdisalaam ma argagixisaa garaad cabdixakiin ma cabdikariim ma argagixisaa jawaahirta ma argagixisaa هذا موسى ومغل أبتي موسى ومغل شالي وحيا هاي موسى يا أبي ما أنتم حالين موسى ومغل داعش ما تشوق الله سعانو دي دراويش ما تشوقته على عقيدة ما تشوقته خاتم ما تشوقته شباب ما جوجته جماهير ما جوجته هذا الميشن دتك جوجا وادتك رير سول يسراغ يا عين ودا شيء دولبانتا دا ku biiraan dadkooda reer soo yasaraag marka ka kaama yeelayno laakiin safariintii waan fahanay fariinta Muuse idin soo diray ma fahanteen fariintan doonaya inaan idin furfuro idin fahansiiyo Muuse wuxuu yiri waxaan doonayaa inaan laayo xabadaan ku bilbilo sababtana aan ka dhigto because waxaad tiin argagixiso taa macnaheedu waxa weeye inuu idin soo diro argagixiso meesha la idinku soo dhex tuuro hadday doonaan kuwa idinka ha noqdaan oo idinku soo eego idin soo kaysiiyay taamiyan ka yeelaynaa waa inaynu islaalinaa maya halkan boos ugama banaana argagixiso annagaa ku filan marka taas waa inaynu iska ilaalinaa waa inaynu garbaha isqabsanaa waa inaynu xaafadeena iyo feejignaan dheeraada samaynaa waa inaynu amniga ka shaqaynaa inagu haddayna islaalin oo inaynu xiftiin cid kale inay ilaalinaysaa ma jirto waadna u jeedaan cadowga iyo ciilka leeloo qabo inay gudaheena la iskaga xabadu inaga dhex dhacdo waana waxyaalahan doonaya amnigeena inaan ku siyaadino saddex arrimood oo kale dhacdo meesha ka jirtaan doonaya inaan mid kasta ay dul istaago oo cabdikariin yaro dul taabtay qaralaha siiyo mid waxa weeye arintan iyo kacdoonkan iyo guushan maanta aad soo goyseen oo u soo hayseen Soomaali Maxamed oo dhan ma kaliya reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn waa Soomaali oo dhan baad maanta guusha u soo hayseen ay dushiina saaran tahay ummadda maanta idin sugaysa hadday noqoto ismo iyo hadday noqoto jabaahir iyo hadday noqoto culimo iyo hadday noqoto haween intaba
maanta waxa la sugayaa oo la dooraya inaga weeye Soomaaliya oo dhan baan ay sugaysaa taasna dad baysan u wacnayn dad baa quruxdiina dhibsanaysaa dad baa calankiina buluug iyo cudur ku yahay dad baa midnimadiina xumad ay dhibsanayaan marka si arintaas loo baabiyo waa in la helaa wajigii lagu burburin lahaa maxaa kowka waxa la yidhi dadka kan hadii cirka la geeyo oo khabrada lagu soo daadgureeyo iyagaaba isku baabaaya khabriga baa la soo diray xitaa bilaash baa la nooga sameeyay waxa lagu yidhi qiimo dhimis baa lagu sameeyay marka waxaan leeyahay jabaahiirta qolada cabta khamriga diyaadad xagga alle iskaga day waayeen xagga kacdoonka iskaga daaya oo khabriga ma joojiye baryaha keen khamrigu asuuq waayo talabaad wooyana la isku dayay inay ka dhacdo laascaanood dadyo waxa jiray xurgufo dhex yaaleen ama hawlo isku haystay ama guryo iyo dhulal isku haystay waxa la raadiyay dadyoogii inta ugu badnayd ee ugu faraha kululaa ee la islaam markiiba way isku dhacayaan kuwii lacag la soo siiyay waxa la yiraahdaa hawlihiin ugu too gurihiin dhista qoladii kale oo ogay halka maxaa loogu talagalay ee la isku dhaco maaha ninkastana qorigu garabka u saaran yahay ilaahay kama dhigin dadkii maanta aqligiiba ilaahay dib ugu soo celiyay xaajooyinka markay arkeen dadkii iyo ismadii iyo odayaashii ay ku soo sameen xaajadaasna waa shaqayn weyn Allahu akbar samaaha argagixisada hadana loo keenay xaqay oo la argagixisa joogta dib ma joogtay way soo socotaa u toogaya taasna waa taas ilaahayna inaguma keeno wixii shidee nagu soo wadana ilaahay iyaga dib ha ugu celiyo wixii shar nagu soo wada ilaahay diga dib ha ugu celiyo ilaahayna dhibta naga ilaaliyo inagu cidna shirku ma wadno cidna dhib kuma wadno cidna dulmi kuma wadno war soo guriyayna ma joogno ma guriyo kala joogtaan soo dhulkiina ma joogtaan ma dhul kala joogtaan ma cid kala ku socotaan yaa Allah waa jahleedin daayo dhulkiina noo daaya guriyina haleedin daayo damiirkiina haleedin daayo talada haleedin daayo intaas ma rabtaan intaas xaq baad u leedihiin anagu intaas aan ku garab taaganahay ilaahay inoo soo waa kale waa aamin dambe hadalkaas in wax naaxin doonaa oo tan hadalka ka bilaabay khataraha inagu socdaa ama leeynoo malagayo way farbadan yihiin inaguna hadeenan amnigeena inagu gacmaha iska qabsano inaan iska adkaynin wax inoo shaqeynaya ma jiraan marka sida aligeed waxaan doonayaa amniga inaad ka wada shaqeysaan kalana shaqeysaan ciidamadii loo igmaday oo amniga lagu wareejiyay oo gudidii 33 ay ku wareejisay amniga annaguna amnigii kuwaasan ku wareejinay oo ku ogna kala shaqeeya ku garab istaaga kii aad aragtaan ee wax ka sii yihiin diyaar bawtiin ma kala shaqeynaysan amniga ciidamada ma kala shaqeynaysan amniga loo xilsaaray Allahu akbar wixii aad aragtaan ee shaki ku jiro ee qolqol ku jiro iyaga soo gaarsiiye ku soo sima arinta labaad oo kale yaa taay raada waxay tahay dawladda hadda maqashaan dawladdu waa dadka dawladdu waa idinku inaad wax qabsataan waan aad baan ugu faraxnay runtii markaan aragnay wiilasha dhalinyarada soo saarteen ee soo xilqaamay ee traafikadii kala hagaya soo idinka kama soo bixin ma musabix baa idin soo diray marka kuwaas oo kale aan doonaynaa qof kasta gees buu ka qaadan karaa hawsha gabadha iyo habarta meesha joogta arta waxa wasaqo wadada yaala ama caag ka qaad hal nadaafiyo magaaladeena jidadkeena aan quruxsano laascaanood aan nuurino haddaba way nuuraysaa intii buluuga lagu dhigay bilic baa ka soo baxday inta kalena aan nadaafsano inagu aan isku naxariisano waa arkay dhalinyaro caafimaadka iyaguna sameynaya kaalmooyin degdega iyo dhiig diiwaangelin waxyaalaha lagu gorto dadku inay iyagu tashan karaan oo wax qabsan karayaan waxyaalihii hadda maalinood inaga ma bilaabayna inuu cashuurteena inuu urursano dawlad yar baan iska noqonaynaaba Somaliland dawladda federaalka ee Soomaaliyeed iyo madaxweynaha hadda waxa uu sheegaynaa maanta waa magaalo kale waa gobol kale oo Soomaaliyeed oo calankii wata اعتراف Soomaaliya ku taaysa ku ogow hadalka waxa uu deeray inta kale garaa Cabdisalaam Allah idin dowro wa salaamantii wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh